madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen iyo gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka Hirshabelle Sheekh Asmaan Barre Maxamed iyo mas'uuliin ka tirsan Hirshabelle ay hogaaminayaan oo muddooyinkii la soo dhaafay oo la shaqo u jooga caasimadda dalka ayaa maanta ku soo laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabelle qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jowhar iyo mas'uuliin ka tirsan Hirshabelle ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay mas'uuliintaasi garoonka diyaaradaha gobolka Shabeellaha Dhexe soo dhaweyn kadib ayaa gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Cabdi Xuseen Geedi iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabelle Canab Axmed Ciise waxay jeediyeen khudbada soo dhaweyn ah soo dhawaada caasimadeena Hirshabelle oo nabad ah alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay wuu noo barwaaqeeyay wax dhiba ma qabno waa fiicanahay caafimaad ilaahay na siiyay adinkana waa ku faraxsanahay inaa madaxdeena qaaliga dib ugu soo noqotaan caasimadii Hirshabelle muddada halkaan ka maqnaydeen aad iyo aad baan u fiicnayn waxa dhibaato ma aan qabin aad baa loo fiican yahay arrintaas waxaan mataqaanaa aad ugu mahadnaqaynaa ciidamada qalabka sida oo gaaf wareegayay cadawga si ugu soo gelin degmadan ama gobolkan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wanaagga iyo dadaalka ay muujiyeen madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa sheegay muddadii uu ku maqnaa caasimadda dalka in uu u joogay howlo shaqo oo ku saabsan sidii loola dagaalami lahaa kooxaha argagixisada maleeshiyada al-shabaab sida ogtiin baan ku bariyan waxaan ku maqnayn Muqdisho aan howlo shaqo ugu maqnaaday howlihii shaqo ugu maqnayn guulee noogu soo dhamaadeen xaqiiqdii waxaan noogu badnaay oon muddadan jirnay aan ku mashquulshanay waxay ahayd sidii deegaanadan culayska kor saaran ee kooxda nabadiidka ay ummadan dariiq walba ay u taagan tahay sidii culayska looga qaadi lahaa heeday dawladda dha waxaan isku soo afgaranay in dadkan dhibaatada haysatay abni wax laga qabto annaguna aan hor kacno ma aragtay dadaalkaas lagu xureenaayo dawladduna waa nala qaadatay insha Allah waxaan rajaynaynaa sad ogtiina meelo badan ay ka bilaabatay dib u xureyntu guud ahaan inuu state-ku xur ka noqon doonaan rajaynaynaa cadawga nabadiidka ah maalin waliba ummadda dhibaateeyo waxaan rabaa halkaan inaan uga faa'iideysto dad aad noogu qaali yahay ayaa ku geeriyooday degmo Cadale dad is abaabulay ee bulshada deegaanka dhibaatada hayso in uu adkaysa way ayagu isxilqaamay ayaa ku shahiiday laba maaragtay kamid oo rag aad noogu qaali yahay ahaayeen oo dadkaas abaabulay xaqiiqda waxaan leenahay waa qof waliba way dhimanaysaa kullu nafsi daa'iqatul mawt cadawgan la iska dulqaado intaasaan ugu baaqaynaa bulshada ku nool dawlad goboleedka Hirshabelle Abubakar Maxamed Bacadle warbaahinta qaranka Soomaaliyeed caasimadda dawlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar.